inta laga galo haddana suuqa la maro oo si raaxale loo maro wallaahi buusan iyo billaahi buusan uga dulqaadan masterka markuu deganaan jiray waan garanayaa Nairobi dhalinyaradan hadda aaladda TikTok-ka soo gasha aqoon uma laha nin dadka ku safaado oo ku khaldama ma aha marka kuwin jabroy farxaan waa fadhiyaaye ka soo bax guriga wax iska dhe ama ninka lugaha qabso walaalow iga raalli ah ku dhe farxaan marka anaga qabanayne فرحان سلام يا دورت ما بقى كازم وان كا قاده سو dhawaada dhamaantiin كازم horta waa salaam ya dhamaantiin dhigo horta dhigo waxyaabaha qaar waxa jirta in ma garanaysaa dadku ay kala qaadaan dhigo farxaan iyo ninkaasi de laba nin oo isla eg maaha laba nin oo challenge gareyn karta maaha laba nin oo isqabqabsan karta ma laha laakiin de waqtigii iyo ma garanaysaa aaladana nagu sintay in ma garanaysaa hadba laba qofo aan isku loodahay inuu isla ekeyn inay ama iscaayayaan ama ma garanaysaa isu hanjabayaan ama isflagaadinayaan dhowr qodob baa qabaa farxaan oo kaazan anagu doorta waxa la yiri in adeerka markuu ma garanaysaa qaldan yahayna u hiili markuu saxan yahayna u hiili ma garat arrimaha dhacay iyo qaabka ma garanaysaa uu aaladan ku soo galay iyo waxyaabihii dhacay oo dhan horta de ma ii duubnayn baana hadda ii duubnaadeeno qaaran soo dhageystay qaaran indhahayga ku maqlayba waa tahay aniga niyo horta uma fahmin barnaamijka uma fahmin farxaan bareejo wax ku yeel ama ku carjaraafe ama ku ceebe ama ma garanaysaa cay u samee laakiin waxaan u fahmay jambal ma garat waa fikirkayga jambal baa u fahmay meesha de in ma garanaysaa gabarna adeerta makhraati la gashto oo baasha isjijiid noqotona de ninka weyn baa taa waxa garaad ma garat iyo jabrana maanta nin de cadow badan leh waa noognahay aaladan cadowga uu ku leeyahay magaaladii ma garanaysaa uu u dhashay bastoolad madax lagaga qabanayay annagu aanu de ma garanaysaa kareer ahaan aanu buunbuurinayno nu lahayn hore u soco buu ahaa ma garat asaga shakhsiyan waxaan qabaa wararta de ninkana waa nin adeerka xataa haddii uu arrinka kugu sameeyay aad social media ka sheegtay adoo la waa in adeerkay baa dadkii u sheegtay rag ilma adeera oo fara badan baa leediin labada dhinac baa inta u tagtaa dhiilayd wariyo adoo social media keen farxan waxaas igu la kacay ma garanaysaa layga qabto marka baashu way fududaan lahayd oo qofkan intii uu tagay uu sheegay de ilaahay baa oge yiri farxan baa yiri waxa laga soo qaado qof laftirkiisa de ma garanaysaa meesha la keen lahaa si reality baa ma garanaysaa wax loo xalin lahaa laakiin arrinkii inta ma soo noqonine jabra oo de aan ognahay dad badan ay ku xiran yihiin hadalka uu jeediyay ilaa hadda qolka la sii fuushan yahay anigu de arrin qaldan oo ma garanaysaa gafa inay tahay baan aaminsan xataa inkiis haddii ay dhacday taninin adeerka way u malayn ma de waa lagu qabsan karaa rag dhalinyarta maadeerka iyo jabra meesha joogto de waxba ma kala tiina laba nool maadeeratiina waa horta arrinka xalin lahaa wax social media imaanaya iyo in la xaliyo u baahan maahan gabi ahaanba anigu garad waxaan qabaa ninkaas dhalinyarta waa sax inuu ka qaldan yahay asaga laftirkiisa waa noo sheegaynaa mar haddii wixii ma garanaysaa ay saa u dhaceen xataa inaad ma garanaysaa aad TikTok-ka keento ma ahayn waana kaa yir yahay oo de maanta nin aad ma garanaysaa la xifaaltami karto ama gacantaada u qoori karto maaha cadow badanna waa leeyahay marka garad de ugaaskii baan ahay waan isku kaa duubay ma garateen adeer kana dhac ma garat dir ilaahay u cafi wax walba oo dhacay ma garatay annagu dareemi karna jambalo badan inay dhici karaan xaalado badan ay soo wajahmi karaan inaad walaal waxaan ku dhihi lahaa garad dee walba garta noo goyn jiray ugaasku maxaamadu kugu tuuray ka dhacay adeer ma garat nuuna qaado عسكر سؤال عسكر سؤال بكويتين ما هورتينا كادي ناصر وهالمر سيدا واحد عسكر سؤال بكويتين جواب عسكر ninka dhalinyarada aad hadda u hadlaysidee aad farxaan kala hadlaysid farxaan hooyadii qolkan ku caayay inaad ma raaligelin buu ka bixiyay maxaad in adeerka xiniyaha u qabanaysaa iyo maxay ahayd aad isaga khalad ku saaraysaa
garaad waa kuu jawaabay dhigeyso marka inaad feeri inaad de ma garanaysaa ninka ragga ah way la iskaga celiyuu leeyahay adiga ninka waad isku dhacsantiin ma garato meelaha iska raadsada anagu ragga garta aanu kala qaadayno kana aniga ii dhow in adeerkay ma garatay fahmaysaa laakiin aanu u kala gar qaadno oo nu niraahno kala weynaada baanu xaq u leenahay maanta cunuga yarka in la dhibaateeyo ama ma garanaysaa isagiina uu dhibaato geysto oo maxaa la dhihi jiray farxaan inuu ka weyn yahay ma hene kama yara waxaan ku yiri ardayna ina armi cabdi inuu ka weyn yahay maya maxaad ugu yaraynaysaa warfiiri inaad arfiiri dhigeyso caskow wareed anagu qaadka yarka markaad leedahay waxba kama aragtid garaad ifaan ma garat inaad caskow bal ku soco adigu abdiyo ku xigraad bilaa ها أنا أقدر فيري أنا ومشان وحكي أرقنا معهم وح ما قرنا سا حالي دعي وإيش حالي دعي وحكي ما أرقنا محد يعدونا نكاد لنا أنا واحد يعدونا أنو ونوجناي ما نشوف دوين إننا أنا أقدر كل لو دبعتي جرو ولا جسمي عنو جاير كا أنا واحد بو نوجناي واحد بنا ما قرنا سا ونفانسناي وحلواتي ما قرنا سا أتيشينه ونوجناي جراد ندي أدينا مي عبدي ونادر نادر كان هذا سكول حسنتي لو نبتيني meelaha ka raadso adna garaad ka dhac aan intaas ma garanaysaa dacwaamadii ugaasnimo kalmad baan kaleeyahay inaad madi kalisa inaad foostu igu soo riixay nin baa isku dhaxsantihiin buu igu yidhi horta niyow yarkaa anigu isma hayno iskumana dhaxsanin foostana yaan la igu riix anuu xaqaan ka hadlaa runtaan caddeeyaa warninkaasi isaga afkiisa ku caytamay isaga afkiisa been abuur ku sheegay isaga afkiisa wax walba ka yiri oo gabadha ku aflagaadeeyay oo yiri farxaan bareejo gabadha in adeertiisu weerar waxaasoo khalad oo yiri soo waxaas baa waxaan anu ka hortagayna marka dhageyso arrintan aad ku soo celcelinaysid garowa lagu dhibaateeyay garowe maalinkii annaga joognay anigaas garowe dhex taagnaa wax lagu dhibaateeyay iyo wax lagu sameeyay iyo xabad madax laga saaray ma jirin oo wallaahi maysan jirin foostay ahayd victim buu iska dhigay nin buu foosto ku riixay marka horta farxaan waa nin weyn oo garaadkiisa leh wixii isaga ka soo go'ana ku dhaqaaqaya aqoontan u leeyahayna de nin hooyada caayay iska cafi aniguba ma cafiyeen nin hooyaday caayay iska cafi kuma cafiyeen ilaa uu lugahayga hoostooda yimaado oo uu raaligelin bixiyo ma cafiyeen nin iga been abuurtay oo aan raaligelina tolkay oo dhan hadday soo raacaan ay yiraahdaan cafina ma cafiyeen وانا كبح رجع odayaasha orda bismillaahir rahmaanir rahiim horta nabiga lagu saliyo aska wala liikaadi aska wala liikaadi aska waa garad war man idikaadi horta nabiga lagu saliyo horta inta kadib ilma reyaalow ninka la yiraahdo farxaan oo kale anu nin aad iyo aad ay sii yaqaaneen waliba waxyaalo badan ay soo wada mareen oo dhalinyarada xitaa aad u garanayaan laakiin yarkan caawaynu ka doodayna tayna adeer gaf cad aynu garanayno wax kasta uu taagan yahay buu sheegtay inaynu u cudur daarno oo inaynu tidhaahno waxaanu sameeyey ama hawl kale ka baalkariyey war innaka caqligeena xitaa ceeb ku tahay moogti marka run laga hadlayo weeye kowdhi farxaan ninka la yirahdana war farxaan ninka xitaa gartiisii wuxuu soo dhigtay bannaan buu soo dhigtay farxaan caawa qolkiisa waxaan u malayaa dee dhalinyaro badan horta maysan dhegaysanayn baan u malayaa raggii dhegaysanaya haddii ay joogaan war farxaan wuxuu soo istaagay in adeero dadkan noocan iyo waxaan soo baalgaranaya war yarkan jabra la yiraahdaa atashin buu raadinaya atashinkii iyo wixiina farxaan buu dabada la soo galay marka farxaan oo in adeer run baan ku sheegaya caawa hadalkaan aniga dhul baan taanahay run baan ku sheegaya ogaadeenna ma jirteena ma dhul baan taanahay in adeero mid baan ku sheegaya in adeero waxaan gaf adiga aadan qaadateen weliga hayeelin haddaad yeesheen gubeed baad noqonaysaa in adeerow yarkaasoo gaf buu ku geystay golo soomaali maxamed oo dhan buu kugu eedeeyey cid kastuu kugu eedeeyey wax kastuu sameeyey haddaad qaadati ninkaasu hal masalow baad ku cafi kartaa waa isagoo in adeer kugu yidhaahdaa inta golo soo istaago oo social media oo dhan soo istaago in adeer raallahu war waxay umaadan geysan adeer
haddii lagugu jaaj gareenaya farxaano inaad yar maqaaxiyaad fadhiday anuu nin waxaan ahay dhulbaanto qurbaha joogo reer Nairobi maqaaxiyaad fadhiday haddii lagu yiraahdo maxaad u fadhiday farxaano de inaad yar waa laga khaldan qodhay xerada kawdi ninku intaas kugu haystaa marka inaad yar macaan waxaad samaynaysaa ma taqaana war waxan iyo dadkan iyo waxan ku baashareyntii waxan kugu wada inaad yar hayeeline inaad yar meeshaas meeshay taariikhda iyo meeshay leedahay gudubtaa la galay iyo bointigaa la sameeyey war ninkaas waa inuu sameeyaa waxa xaqa iyo wuxuu sameeyey iyo barnaamijkan iyo waxaan u abuurtay iyo hadduu doonayo inuu shacab ku helo iyo bahalkii la abuuro nin laga abuurta adigu ma tiid farxaano kelmadda weynaad ogaata horta waxaan kaga baxaya waxay tahay ninkaasuu ma raaligelin public soo gal farxaano ma maqashaa farxaano saaxiib inaad hadduu raaligelin public soo galo inaad yaro anigu adiga iyo jabra anu dhulbaantaana labadana waa idin samantiin labadana ilmaareed aad tihiin kowdhe hadduu inaad yaro ninkaasu public kugu yimaado kugu yidhaahdo inaad yaro raalli waan kaa khaldamo dee waan kugu socdo atashidii waxbaan kaa raadsanayay dee gob baato waxaad oranaysaa nin reer saa qaato nin calaayadaa ku yaala horo saacad oranaysaa mogti laakiin inaad sheekaduna sida caawa oo socotay suubaa salaaxan iyo farxaano walaal hawshan ka baxdiyo farxaano sidan samee inaad waxaan anigu yeelan adiguna ha yeelin وانا كبح نار سيدا قرات بسم الله رويال فاميلي الله يسك واحد وكبح يا سلام يا وريسك الله علاقه ما هي بحر اوكسنا ايش طلياني ورتو سلام يا صاحب محل horta ninkan jabra ah iyo dhalinyaradan TikTok jooga horta aqoonku ma laha ma ku yaqaanaan haddii yihiin dad ku yaqaanana fuustooyinkan iyo nacnacdan iyo waxaan meesha kula soo dooran lahayn soo marka aniga waxaan ku dhiilaa saaxiibow maadaama aysan ku aqoon aysan ogeyn farxaan cidda uu yahay iyo aysan ku ogeyn farxaan aniga waxaan ku dhiilaa ciyaal yar waaye waxay kala ogyihiin ma lahan attention meel qaldan oo ka galay dadkan waa iska daalayaan farxaan oo cafi iska daa iyo waxa ku dhaqaaqaysa waa ogaa howlaaga aqaana shaqada aqaana marka saaxiibow ninkaas iska daa iyo hadeyn inaad ku deelin waa ogaa marka aniga waxaan ku dhiilaa farxaanow arrimaha kale adoo wata iska daa asagoo haddoo mar saddexaad soo laabto hadda kahor maraad ka qalaysaa xusuustaa haddii soo laalaabashadiisu ay badato meeshuna inay dhib badan tahay oosan aqoon waxa uu ka helo leeyahay laakiin aniga waxaan qabaa inaad iska dayso oo mataqaanaa aad iska inogaraysaan qabaa marka dadkan waa ku daalaya farxaano iska daa ogaba royal bismillaah rahmaan rahiim soo maray oo soo jabay carraani warba uma hayaanba oo soo jabay halkan ku arkay talyaani waa dhib badan yahay talyaani ma yaqaanaan hal daqiiqa isii ونيو تعاد باني سلام يا دمانتين نيو فرحان أنا ويل ير إلا الفلاح أنا قاني ويانو أدير أنا أحي وأنا أفجابا حتى ضدك بيا قانان نين معي هاد هذا قلال صوفرت عايتم يماها ونيو هو ويل كاير إلا هاد قدام بيسوق السارية وعايتم يا وجوار عاية ومارت مارت وحد دون أو سمانة يا ونيهو نكتي خالد وين بو سمي مر قبلو عاي مر فرحان ودينين بيسنسمان dad buu baadaa arrinta arrin jaa'ifa ah waay arrin macnaha sahlan ma aha arrinta tilaata ee sheegaya waxa weeyaan raggan ogaadeenka ay isku soo dhax tuurahayo waa la isoo toosiyey hebel baa isoo wacay iyo caaytamayo farxaan oo saayeel iyo noocaas iyo waxaan leeyahay dhinaca u istaagaan niyahow farxaanow ninka hadduu meesha intuu imaado ninka odaya caskiga dhameeyey dee maartay public buu ka hadlay uu maartay maxay ahayd intii uu yiri uu raaligelin ka bixina waa meesheeda haddii kalena laba nin baabatiin waaba intaaba سيدة علقو بسم الله الرحمن الرحيم ونواد بعد السلام يا جماعة سراكين شمدوها الصارن يا فرحان براجي جماعة بعد السلام يا نيو
diyaarin aan xalay dhamaynay baan haddana dib u arkay ma dhaweeytay codad ay soo duubay farxaan xalay waa la hadalay waxaan idhi cunuga yar iska daa waxa weeye masabkaaga iyo meeqaamkaaga uma dhigmo inaad waxaan inta taabato la gudaado dee qof buu waxa weeye dhirbaaxay arrintaas waa ba dhamaynayo farxaana waa nala qaatay ninkii waxaa lasoo dubay intuu qolka yimid weli la sii taagan ceebtii iyo xumaantii uu dusha ka saarayay farxaan oo weli uu ku taagan yahay farxaan baa ibaaday weliba aniga keligay maayo xataa gabadha in adeertiya ee amiish bal ceebta intaa la fiirinaya inaaro marka jabra neew waxa weeye guuxiisu ka dheeraynaya taabto way ku qasban tahay markan sababta waxa weeye dee qof maanta kula taagan meel walba wuu dhibaateeyay oo farxaan oo dhibaatayna wuu dhibaatay deera dhibaatay isaga raadsanaya isagu dhibaatada gacantiisa ku raadsanaya ee magaaladii kuula nool ee haddana maanta taagan farxaan baa ibaaday oo dadku baadaa oo qofkii qurbaan ka yimaada iyo qofkii Soomaaliya ka yimaada iyo qofkii Puntland ka yimaada bal lacag buu ka qaadaa baada ninka taagan ee suuq xumaynta u gelinaya waxa weeye dee reerka ma jeerteena waxaan maleynayaa kulay arrintan waa arkayaan ogaadina waa arkayaan farxaana waa arkaya ilaahina waa arkaya annaguna waanu arkaynaa marka farxaanow haddayna qool intuu kuu furnaado isaguna qoolu furnaado waxa weeye uu halkaa ka hadlo ay ka dhigan tahay dee isku meeqaan bay noqonaysaan marka arrintan isaga hadda kor uga babax wixii aad ku dhaqaaqaysan waa taqaanaa laguu sheegi maayo farxaan waa soo garamay saaxiib gaclay ka wadhay midaan kuu sheegaya inaan midgaan dhalay baad noqonaysaa haddaad ninkaa daysi wallaahi billah isagii ilmaada ridi boqol bay soo furanaya caawa ka wadhay haddaad aakhire ka xidho weydi aad hooyadii wasi weydi wallaahi billaahi